waxaa maanta magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle mar kale ka qabsoontay doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Kursigii koowaad ee tursigiisu uu yahay Hoob Eber 70 waxaa ku guuleystay Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh. Kursigii kale tursigiisu uu yahay Hoob 115 waxaa ku guuleystay Cali Maxamed Cumar Cali Balcad oo ahaa agaasimihii hore ee madaxtooyada Soomaaliya dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud. sidoo kale Cali Balcad kursigan maanta uu ku guuleystay isaga ayaa hore ugu fadhiyay 4 sano la soo dhaafay. doorashada labadan xildhibaan ee maanta lagu doortay magaalada Jowhar waxaa ka horeeyay 6 xildhibaan oo toddobaad ka hor lagu doortay Jowhar kuwaas oo dhammaantood ka tirsanaa baarlamaankii 10aad ee dalka, waxayna sidaas ku noqonayaan 8 xildhibaan waxaana harsan 5 kursi maadaama kuraasta Jowhar taal ay yihiin 13 kursi, waana kuraasta ugu adag 5 kursi ee harsan. maalmaha soo socda ayaa la filayaa in guddiga doorashada dowlad goboleedka Hirshabelle ay shaaciyaan doorashada kuraastan harsan. Ibrahim Ali Nuur, TV Universal, Jowhar.